السلام عليكم كسو دواده كيستا تي في waa video uu soo codsaday daawade la yiraahdo Gurey oo ku saabsan sida loo qaato laysanka darawalada gawaarida xamuulka qaada ee loo yaqaan traga. Daawadahan ayaa hadda nin darawal ah oo ku nool qaaradda Afrika laakiin mar dhow rajo ka qaba in uu yimaado dalka Mareykanka sida uu ii sheegay. Saaxiib marka hore waxay ku xiran tahay gobolka aad ka tagaysid dalka Mareykanka, laakiin haddii aan soo qaato gobolka ay Soomaalida ku badan tahay ee Minnesota waxaa CDL laysanka looga qaataa adiga oo maraya habkan ama shuruudahan. Number 1 waa inaad haysatid marka hore laysanka darawalka driver laysanka yar. Number 2 waa inaad ku baastaa imtixaanaad qoraal ah sida mid la yiraahdo general knowledge ama aqoonta guud. qaybta labaad waa inaad ku baastaa air brakeska ama kuwa brakeyada ku shaqeeya airka. tan saddexaadna waa inaad ku baastaa doubleska ama waxaan u naqaano isjiidka. imtixaanaadkan ayaad ka heli kartaa dhammaantood online ama internetka iyaga oo aad ku practice gareyn kartid su'aalo oo dhan iyo jawaabahooda. Numberka saddexaad waa inaad la timaadaa warqad caafimaad oo ku saabsan inaad awoodo inaad kaxayn kartid gawaarida. waxaa la dhahaa medical card ayaa la dhahaa. waxyaabaha ay baaraan baa waxaa ka mid ah aragga iyo inaad cuntid daroogada iyo ugu dambeyn dhaqdhaqaaqa xubnaha. Numberka afraad kadib ayaad u qalantaa in lagu siiyo ogolaanshaha inaad baran kartid gawaarida waaweyn oo kaxayn kartid adiga oo ka baranaya qof kale. ama barmidka waa inaad haysataa barmidka muddo ugu yaraan 14 casho ah inta aadan gelin imtixaanka weyn oo aad ku soo qaadanaysid laysanka weyn. Numberka shanaad waa inaad la timaadaa sharciga lagu siin doono sida I-94ka ama green cardka markaad dalka soo gashid. ugu dambeyn markii aad ku baastid testiga darawalnimada oo ka kooban inaad ka sheekeyn kartid biraha gaariga pre-trip iyo u kaxaynta gadaal backing iyo ugu dambeyn horey inaad u wado gaariga ayaa lagu siinayaa laysanka weyn. laysanka weyn markaad qaadatid hore shaqo lacag leh lagama helo. marka hore waa inaad soo qaadataa training ama tababar wadada ah oo aad raacdaa kambaniyada waaweyn sida Swift iyo Warner. dhowrka bilood oo hore lacag lagama fisho badan, laakiin marka training ka soo martid ayay ku bilaabanaysaa in la isku kaadilo oo dad badani oo gawaari leh ay xisaab fiican ku dul dhigaan sida kambaniyo Soomaali ah, kuwa Hindi ah iyo kuwa Russian ah oo loo shaqeeyo. videoga xiga ayaan kaga hadli doonaa sida loo iibsado gaari adiga aad leedahay, laakiin marka hore waxaa lagu soo jabaa kuwa dadka kale ay leeyihiin. la soco qaybta dambe ee videoga. Assalamu alaykum.